magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa maanta ka dhacay dibadbaxyo rabshado wata dadweynaha iyo ciidamada nabad sugidda waa nabadgelyada ayaa isku dhacay dad shicbi ah ayaa wax ku noqday inkastoo war rasmi ah aan laga hayn waxa kale oo la burburiyay hanti gaar loo leeyahay iyo gawaari ay sidoo kale dadweynuhu leeyihiin waa sidee xaaladda Laascaanood Cabdiraxmaan Bidhaan ay soo yeeli jooga Bidhaan maxaa u dambeeyay magaalada Laascaanood waxa ka socda sidaad sheegtay Cismaan Laascaanood banaanbaxyo ka dhacay rabshado wata imika magaalada way degan tahay galabtii caawa wararka ugu dambeysay helaynay golaha deegaanka ee magaalada ee la doortay Laascaanood ayaa shiray oo baaqay soo saaray golaha deegaanka waxa ku baaqayaan in madaxda gobolka Sool ku jirta xukuumadda Soomaaliland iyo kuwa la doortay ee ku jira golayaasha Soomaalilandba in ay Laascaanood degdeg u soo galaan oo laga hadlo xaaladda sidaad ogtahayna Cismaano banaanbaxyadan waxa ay ku lug leeyihiin dilalka ka dhacay Laascaanood xalay tole waxa lagu dilay Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye Cabdifataax Cabdilaahi oo ku magac dheer Hadraawi Sangub oo isla markaasna kamid ahaa saraakiisha xisbiga mucaaradka ah ee wadan ee Soomaaliland isagoo salaadii ka soo baxay cishaay sida aynu ognahayna Laascaanood bariyahan dambe waxa ka dhacay dilal fara badan Cismaano oo dad waaweyn oo dal gobolka Sool u dhashay oo mudan ah lagu dilayay taasi oo keentay in ay dadweynaha Laascaanood ay aad uga cadhoodaan iyo dadka wax garadkiiba oo la leeyahay dadka la leynayo maxaa Laascaanood waxba looga qaban kari waayay sida aynu ognahayna maanta halkaasi rabshadii ka dhacay waxaana loo xaqiijinayaa oo aanan BBC ahaan aanan nagu ogeyn hal qof inuu dhintay 7 qofna ay dhaawac yihiin Cismaan ilaa hada marka wax ma laga qabtay oo dawladda maxay ka tiri dilalkaas hadda soo qaaday dilalkaasi sidaynu arkayna waxba lagama qabanin waayo waxa ku muuqata in wali dilkiiba socdo oo kolba qof weyn oo caana Laascaanood lagu dilay taasi waa natiijadii oo ma oran karin waxba laga qabtay laakiin waan ognahay xukuumadda Soomaaliland wafdiyo u dirtaa wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin ayaa in badan halkaasi joogi jiray laakiin waxa muuqata in aanay talaabooyin ka qaadin waxba qabanin oo tii la saaray dadkii Keemi Baydhaba iyo Bakool ee la oran jiray iyaga wax dilaya laakiin se imika waxaan wali ognahay in halkaasi ay ka socoto dadkii lagu dilay